wiilkii madowga noday. Wiil yar ayaa hooyadiis oo doolsho samaynaysa jikada ugu soo galay markaasuu arkay shukulaato qasan oo miiska saaran. Shukulaatadii buu wejiga iska mariyey si uu qof madow ugu ekaado. Kadibna hooyadii ayuu ku yidhi, hooyo i eeg, maanta madow baan noqdaye. Hooyadii ayaa madaxa ka dhirbaaxday oo tidhi, ha odhan waxaas mar dambe, orod aabbaha u sheeg waxaad samaysay. Kii yaraa wuu orday oo aabbihii oo fadhiga fadhiya ayuu u tegey oo ku yidhi, aabbo i eeg, madow ayaan noqdaye. Aabbihii baa isna mar labaad sidii hooyadii madaxa ka dhirbaaxay oo ku yidhi, waxaa mar dambe ha dhihin. Orod awowgaa soo tus waxaa samaysayna. Kii yaraa waa orday oo awowgii oo garaashka gawaadhida ku jira ayuu u tegey oo intii in la eg ku yidhi sidii oo kale. Awowgiisna madaxa ayuu ka soo dhirbaaxay oo intii oo kale ku yidhi. Kii yaraa oo xanaaqsan ayaa jikadii ku soo laabtay. Markaa ayay hooyadii ku tidhi, hadda maxaad leedahay? Wiilkii ayaa ugu jawaabay, lama yaabayo waxa madowgu idiin necab yihiin, waayo anigoo 10 daqiiqo oo keliya madow ahaa ayaaba idin nacay.